adigoo magacaaga ku bilaabaya magacaaga kolka horeta ku bilow kadibna wax yar oo fikirkaaga ah noo dheh. bismillahi raxmaani raxiim. magacaygu waa amiin axmed baa laydhahaa. intaa kadib waan fiicannahay insha allahu tacaala. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta in shacabkanagii oo muddo dheer laga yaabo inaan kulan noocan oo kale ama maaragtay aragti noocan oo kale aanan aad isugu imanin inaanu maanta wada joogno. waxaanu joognaa geyga ogaadeenaya qayb ka mida. marka aadna waan ugu faraxsannahay. ilaahay baan waxaan ka rajaynaynaa guushan iyo wanaaggan uuna siiyey inuu inoo sii wado. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu maaragtay shacabkanaga iyo shacabkeenna inuu midnimo iyo muwaafaqo fiican inuu siiyo. ilaahay baan taana ka baryaynaa. aadna waan ugu faraxsanahay inaan maanta shacabkanagii, ciidankanagii, deegaankanagii inaan maanta aanu dhex joogno oonu dhex mashaaxayno oonu isku faraxsannahay. marka insha allahu taala inaha baan kusoo koobi lahaa. dadka shacabka ee qabalaha shiniileeda degmada dhanaa ka tirsan jooga say idiin soo dhaweeyeen? waxay noo soo dhaweeyeen shacabkii oo wada jira iyo maamulkii iyo ciidankii meesha la yidhaahdo shiniile ka jiray si wada jira oo farxad iyo raynrayn aad iyo aad loogu dheehan karo oo lagu farxi karo iyo nagu soo dhaweeyeen. annaguna aad baan ugu faraxnay. markaa si aan qiyaasi karin bay noo soo dhaweeyeen. waa mahadsantahay. adigana walaal magacaaga? cabdifatax baa laydhahaa. waan ku faraxsanahay ummadda reer ogaadeenaya ee sugtay maanta shacab iyo ciidan baa cadda waan ku faraxsanahay. adigana? annagu nafka aad baa walaal waan ku faraxsanahay ummadda reer ogaadeenaya iyo ummadda Soomaaliyeed oo maanta martaan iyo farxad halkan isugu timid oon laabta iyo madaxaba isku salaamayno. aad baan idin salaamaya dhammaantiinba. waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaynu guul kama dambaysa inuu gaarno. halkan waa qabalaha shiniile oo ka tirsan degmada dhanaan gobolka Shabeelle. adigana walaal magacaaga? magacayga waxaa la dhahaa Mustafa Maxamed Ismaaciil. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anigoo ka tirsan ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeenaya, ciidanka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya anigoo ka tirsan inaan imaado gobolka Shabeelle qabala kamid ah. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay oo ummadanadii maamulkii iyo ciidankii iyo shacabkii ay gacmo furan ugu soo dhaweeyaan oonu hal faranahay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. dhammaantiin shacabka iyo ummadan dhammaan baan salaamayaa. nimadoodana waan ku faraxsanahay insha allah. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta qayb ka mida qabalayga shiniile oo ka mida degmada dhanaan ka tirsan inaan isugu nimaadno ciidankayagii iyo dadkayagii dhammaan aan isugu nimaadno. anuu fikiraan aaminsanahay baa jira. dadku dhammaan anuu shacabba ma dhahayo, dhammaan dadku waa wada ciidan, rag iyo dumar dhammaan waa ciidan. dadkayagii inaan isugu nimaadno annaka oo fikirka nagu halmida yahay qayb ka mida waddanka ogaadeenaya qabalayga shiniile. waxaa igu dambaysaan u malayn muddo 30 sano ka hor ayaa igu dambaysay. dibna maan arag. maantaana hadda maalinkii labaadii ah. 100% waan ku faraxsanahay. alxamdulilah rabbil caalamiin. ilaahayna ha noo siyaadiyo. waxaana leeyahay midnimo, muwaafaqo, yaan isku ogaano guul iyo gobonnimo. dadka shacabka ee shiniile say idiin soo dhaweeyeen? 100% aad iyo aad si lagu farxo gacmo furan noo soo dhaweeyeen. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay iyagoon u kala harsaneen. guutadan waxaa guuto ka mid ah jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ee loo yaqaano ONLF. maanta waxay yimaadeen qabalaha shiniile degmada dhanaan ka tirsan. si fiican loo soo dhaweeyey. haddana waxaan wax yar oo waraysi ka qaadanaa gudoomiyaha qabalayga. bismillahi raxmaani raxiim. anigu aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa. soo dhaweynta waxaan ku soo dhaweynay ciidanka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ONLF. maanta halkan aan ku midownay, halkan aan walaalo ku nahay, hal mid aan nahay, hal bikeri oo biyaha aan wada cabayno. masiirkanagana uu yahay ummadda ku nool deegaanka Soomaalida inaan mid ka dhigno. maanta sidoo soo dhaweysan jeesow raggan yimaadeen? aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halkan ku noolaan anoo nabad ah oo maartay 100% intanada maartay hadda nool aan sii socon doono insha Allah taala inaan gobonnimo iyo guul aan helno waarta maalin walba sii jirta. علم الدين كان قبلها شنيله
oo iyada odayaasha qabalayga Shinile oo ka warbixinaya fikirkooda iyo si u soo dhaweeyeen adeer magacaaga waxaa magacayga Ismail Abdullah saad u aragtaa nimanka maanta si aad iyo aad aan u soo dhaweynaya farxad inaan ku noolaano nabad iyo walaal